dhacsadaan ku dhaartay dhulkayga 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 inaan dhib galon dhaqsaw heloon dhulkayga dhacsadaan ku dhaartay. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta oo ay taariikhdu tahay 1 bishii 7 2022 anigoo ah Abu Hasdiq Faarax waxaan ku sugannahay magaalada London studio wax soo sheeg news. waxa halkan marti noogu ah Mujaahid Corneyl Jaamac Maxamuud Aadan Jaamac Doolaal oo in badan sugayseen wareysiyadiisii anigoo hordhac fara badan idin soo dhigay baraha bulshada gaar ahaan Facebooka Jaamac Doolaal oo wada garanaysan oo kamid ahaa raggii dib u xoreynta ku sameeyay Somaliland kana mid ahaa ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM oo maanta horteeda soo fadhiya. Jaamac waxa uu ku dhashay magaalada gobolka Togdheer deegaano kamid ah waxa uu kamid noqday ciidankii qaranka Soomaaliya la isku oran jiray 1976 sida uu sheegay. markii dambena wuxuu galay dagaalkii 77kii ee la galay dalka Itoobiya. kadib waxa dagaalka markii uu dhamaaday oo laga soo noqday isagoo ciidankiisii ka mid noqday wuxuu ahaa saddex alifle. kadib Jaamac sida uu sheegay Doolaal waxa 1981kii uu ka mid noqday commandosti dalka Soomaaliya isagoo tababar ku qaatay Balli Dogle. tababarkaas oo ku soo muddo ku jiray kadibna isagoo commandosa oo ah ciidamada baalasha leh ee dalada ku duula ayaa waxa uu toos ugu biiray ciidankii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee la oran jiray Somali National Movement SNM. Jaamac ku soo dhawow maanta iyo studiogan waxsan sheeg news ku soo dhawow. bismillah waan ku dhawahay sidiiqow waxa weeye 22kii bishii 16 baan SNM ku biiray magaalada Baaldhe ayaan imi dabeedna toos baan uga baxay oo gaashaan tagay muddo markii aan joogay hawlgalkii ugu horeeyay ayaanu qaadnay waxaan ku qaadnay magaalada la yiraahdo Beer oo taraag dheer magaaladaasaan galay 6 askari baanu ka soo kaxaynay oo aanu ka soo afduubnay maanta raggii qaar nool yahay salaad ciidan la yiraahdo baan imanka magar isla markii aad ku biirtay 1982 SNM ayaa dagaalkii ugu horeeyay isla sanadkaas isla markiiba halkaas aanu hawlgal ku qaadnay fariisin ciidan oo ku yaala Beer waanu ku soo guuleysanay hal gaari oo dawladda hoose leedahayna waxaanu ka soo qabsanay markaanu ka soo noqonay meesha leedahay Gumbuur Libaax. saasaanu ku guryanimi anagoo buushi xambaarsan beerka la wada dhigay habeenkii Burco markii hal sabin aanu ku ridnay la garan waayay wax laale wax adduunyaale waxa meesha miray SNMna aan markaa laba aqoon ma maqal mooyaane halka yagii ma fariisanka yagii baan ku soo noqonay anagoo buushi xambaarsan hawlgalka yagii markiiba halkii baanu ka sii wadanay magaalada la yiraahdo Laan Mulaaxo iyo Xaaji Saalax baanu markiiba iyana hawlgal ku galay waanu ku soo guureysanay siiba Xaaji Saalax oo aanu raadiyay rakaalkii ciidanka booliska iyo nin maxbuusa iyo 4 qori iyo rasaastoodii aanu halkaa ka soo qabanay. isla markiiba markii aanu subaxii nimi hawlgal degdega oo maalinimo ayaanu baladhiig ku qaadnay halkaa waxaanu ka soo qabanay 2 askari oo boolisa iyo rakaalkii oo magaalada Baladhiig iska rogadii aanu soo qabsanay iyo gaari station waageen oo nin la yiraahdo Ilaahay u dhaxlay Cabdi Xakiim Somali oo raggii aad u qiimo badnaaya
وقدوميه وأهان شري ميش اللي يلاحظو قدوميه محاكبة بوسمرهب marka gaarigiisii baastooladiisii iyo qorigiisii buu la yimi gaarigiisii baan wadanay iska rogadii aan soo qabsanayna waan wadanay si fiican baan u soo guulaysanay gaashaamaan kusoo noqonay annagoo guul xambaarsan laba ninoo maxaabiistana la seedinaa meesha waxaa haystay nin la yidhahda Samadhu oo kornayla maatadiisii gabadhiisii iyo caruurtiisii laanta guur baa lagu waayey dagaalkii 77 baa lagu qabtay ninaan quslin buu ahaa oo gaangistara oo aad iyo aad ma garanaysa markaan u nimaadnay ee howlgalkaa soo fulunay ee uu yidhahdo yaa idinka dhintay aan ana cidna adeerow majin baa idinla shaqeeyo odhan jiray waxaanu odhan jiray dadka iyaga gudaha ee sanadii rasmiga ahayd gudaha jirta dadka iyagaa nala shaqeeya sidaa daraaddeed meeshaanu marayno iyo meeshaanu tegayno meel walba sahankeeda oo sugan baadna la siiyaa sidaasaanu ku badbaadnaa hawlaha iyagii baanu sidii kusii wadanay ninkaasoo information buu diray uu leeyahay war kuwan hubna ma haystaan qoryo ma haystaan waa inaad hub deg dega u keentaan maxamed kaahin ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu in qoryaa ilaa 400 oo qori diyaarad helicoptera noogu keenay rag huble baanu noqonay ilaa 400 oo qori ciidamada afweyne ama talada afweyne labay ku ururtay inay jamhad dusha nagaga keento oo ogaadiniya ama kilalka shanaad meesha la yidhahdo ay jamhad nin ka abuurto maya walba waa ka abuuray dee annaga nagaga keento nin iminka kilalka shanaad ka mid a oo aan bidhaantiisa arkoo la yidhahdo cali shocaac oo iminka nool iyo nin dhintay oo la odhan jiray magac kale leh oo la odhan jiray aamusane labadaa nin baa noo jabhadayn jiray oo xagga nagaga keeni jiray waxba badan nagama qaadin waanu jebinay jamhadda yani ma garanaysaa dee uu xaggaa ka soo caburiya xaggan aan ka caburinayaa gudaha bay ahayd 83 baa soo galay dee rag baa gudaha ka shaqeynaya oo ilaahay u naxariistay 6 guduhu ka shaqeynayay ilaahay u naxariisto mujaahid allah u naxariistay howlgalkii Mandheera la diyaariyey maxamed baa diyaariyey maxamed kaahin baa diyaariyey 44 meelahaasaan ahayn gaari ilaahay ha u naxariistee ina koosaar adeerkii leeyahay oo siiso afdugaaglaha baanu kaxaysanay cabdiboolidoon baa waday waa nool yahay maxaad ka hayn adeerka ruma wey iska yaraxan xanuunsanaya imka meel aan ciidan lagu ogeyn baanu ciidan kula kulannay waa go-o ciidan koonfur laga soo bedelay oo dhibooya ciidanka markaa waxaa wata ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan maxamed case odaynimo iyo dalyaqaanimo waxaa ula socda ninka la yidhaahda cabdixakiin sumuli howlgalka waxaa iskale ninka la yidhaahdo lixle maxamed xaashi lixle ilaahay ha u naxariisto isagiyo sumuliba ilaa 3 iyo barkii meelahaasaan baanka sigaara buu u dhiibay nimankiina joojiyey yaa u dhiibay waxaa u dhiibayna maxaa case cabdiraxmaan maxamed case waa kan nala jooga ingiriiska waa ninka ingiriiska nala jooga waa bahalkii yara 10 ka ahaa yaryaraado waa beltan markaasuu yihi waryaad sii daa marka askarigii baa idila hadlay askarigii baa nala hadlay markaasuu u dhibay baakidhka war ma fiicantiin
حاجة كوس عطانا دبنا وحنو دي هالكنا نكسو قاعدين بهالش اللي يلاحظون نورد قاعد كتبت وفرنتا قال دوام ما نكسو دعني واجا سود وادي halka gulucda leexsan ee togu ka soo biyo shubo ayaa toosh saddex goor afar goor waa timekii iyo ballankii iyo afkarashadii waa leexanay waa lexle gaariga rasaas baan u saaran kayda halka iyagii baan u leexanay ilaahay ha naxariisto الله لحلا توشك وعكسي halkaasaan ma garanaysaa ninka la yidhaahdo cabdi boolidoon waxaan ugu nidhi bahashaa kusii guro oo nuuradda macasalaama sidii buu nagaga soo noqday ku guriya yimi ilaahay ku badbaadiyey annagoo howlgalka iyagii halkii baanu kasii wadanay marka markuu tooshkeedin shiday lixda waa socoteen buurta waa lugaynay rasaastii waanu qaadanoo adigu dee magaraysa dhul dee loo la garanayay baa lagu aasay hawshaa saddexda miil ee wax la cuno cidda wax noo keento ma naqaan lixle u baa og ilaahay ha naxariisto allahu naxariiste هل يسروها إلهي ونحرس reerkii aan kuu sheegaya muuse cabdalle ragow dumar jamad bay ahaayeen dad diyaarsan bay ahaayeen ما شاء الله dad wax ku oola bay ahaayeen وبصل بسل dad bay ahaayeen yacni ma garanaysaaye sidoodaba yacni halganka u bisil waxaad moodaa inay sanado ku jireen ما شاء الله ما شاء الله إلهي هداي isaguna nin xiriir wanaagsan buu ahaa berbera hargeysa burco saddexdaba xiriir buu ku lahaa wuxuu ku lahaa yacni rag buu ku lahaa waxa weeye wixii uu uga baahday waa laga keenayay time walba ciidanka yani waxa weeye raashinkiisa sigaarkiisa ibnu fulaamkiisu diyaar إلهي ونحرس تسجد دياري 5 habeen 6 habeen muddo aanan nimanka u kala garanayn yaanu howlgalka iyagii bilownay 2 meelood baanu ka bilownay anigu waxaan ahaa dhinaca militariga واد مشغول نسين حق الشام كسر ما بنا مشكلنا وما نقلبها حردودي حردودا ماشو شيل كمان ديرنا شيل كمان ديرا وحق لي لحلي ها لا يا ونحرس وحال اوغا ولا دوني nimanka siyaasadda u xidhan qolka ay ku jiraan ila soo daayo marka lixla wati ciidanka ilaahay ha u naxariisto marka sidii loo galay maxaad nooga sheegay ninka la yidhaahdo yuusuf garbiye ismaaciil oo maanta mootan waa xalimo dhegala oo dadku xalimo dhegala u yaqaaniin yaa samankii ugu horreey ku dhuftay albaabkii jeelka haye bahalku 12 mitir hadduu soo ka yar yahay kugu soo noqonaya waxba ma dilo saasuu u fuulaado dabeedna uu soo noqonaya waxba waa dili waay oo dee baankii waa qarsan waay haye dib uga durbaaliyo dib buu uga durkado kii labaad buu daaqilkiisa ku celiyay albaabkii dibadda haye waa la galay xagga sare nin baa kii waardiyaha askarigii 2 nin buu dhaawacay haye labadii nin maanta nin waa nool yahay haye xaguu jooga burco wuxuu u shaqeeyaa telesom adduunyo era nuur fandhe la yidhahdaa nuur fandhe era nuur fandhe muuse nuur fandhe marka askarigaasi laba dhaawacay waa kii xaggiisana taagnaa bambaa sidaa lagu yidhi oo soo qaadatay soo degay odayaashii waa qaylinayaan soo socda waa nagan halkanaana ku jiraa odayaashii siyaasiyiinta ahaa nimankii dee oo la soo saaray ilaa adduunyada rag baa kuu maqane absolute rag baa kuu maqan laakiin dee waxa weeye haddii ilaaha weyneedmo iyagu ma filayn dee rabbi iyo rag rag darajadiisa si fiican baa howlgalkaas waagaa beriyey annagu qoladii in saleebaan qadho dhow la yidhaahdo oo beri dhaweyd geeriyooday oo reer burca ahaa oo macallin ahaa baanu qabanay hal la dilay la dili baa la isku qabtay
وأروى ورشة أطابني نبالي ليس كداي رابني بوها سلمان قالوا قالوا نجي ولا اسكسي داي لا أنت إنك شمية اللي هذا ولا الكيد بوها إن هذا كيد بوها ولا الكينا لمن كي تانجيه اللي يقول لا يمشي اللي هذا دروينه أي ولا الكينا كم تاعي رجل حسوقي إيه مكبيو صاران الكدر درو شوفي عن ولا soo saaray siyaasiyiintii nin baa yidhi war anigu socon kari maayo macaana waa leeyahay iga taga maca salaama hadraawi baa loodhan jiray cumar hadraawi cumar hadraawi si fiican baan u garanayaa ilmo cumar hadraawi halka ma ka salaamaya isnaan saaxiibna uu dhalay ku sugan dalka Norway baan garanayaa ilmo cumar hadraawi nin macaan lebu ahaa dee nin weyn oo dee anagu ahaa markaa wuxuu iska socda iska galbada waanu soo soconnay shilimaale meesha leeyahay ayaanu nin ugaadh cumara oo beer leh kula kulanay ninkaasu nin abooyaba u shaqaynayay cabdixakiin wuxuu yidhi waraan kaa dilo cabdixakiin sumali waroy waa ku sheegayaa waarmaya adeera waxay ka dileen dee beerta oo waa kaasoo ibnu filaano waa aboogii si wanaagsan buu noo qadaysiiyey si wanaagsan iska rogadiis buu nagu soo qaday xuduudkuna keen horta kiiba wadu noqdo sheegay aboogii baa sheegay waa cabdixakiin sumaliidaan kaa dilo kaa ka sheegay anka la yidhahdo oromadu ahaa waa la xidha waana la garaacay dhul badan nabaro badan baa la yeelay gabcaha cagaha cad haddii ilaaha weyniidmo si walba eedi ayd baanu jeelka madhiina ka jebin odaygii waa soo dhawaaday odaygii wuu soo dhawaaday howlgalkaasu annagoo nabad qaban magaashaaba kusoo noqonay alxamdulilah nimankaasuna waxa weeye dhaawac saalan baa gaadhay alxamdulilah sidaasuu kusoo gebagaboobay waa ku guulaysateen aana ku guulaysan waa muquurkiibu ka mid ahaa muquurkiibu ka mid ahaa marka 1983gii 83gii muquurku wuxuu ahaa laba muquur buu ahaa midna wuxuu kii galbeedka midna wuxuu kii mandheera marka kaasina wuxuu kii askar lagula baxay ilaahay ha u naxariisto abdullaahi askar kulligood iyadoo raggaa aan maanta 3 nin mooyaane waxba ka noqlayn ilaahay ha u naxariisto jannadii firdawsi had iyo goorna magacyo aan jirin aan maqlo oo maalintaa aan waxba la bixin raggaana ka tirsanayn laakiin waxaan jecelahay inaad caddayso halkan ku caddayso raggaa 3 nin baa maanta ka nool maxaa la yidhaha 3 nin 3 nin waxaa la yidhaha ninina ciid baa la yidhahdo waa nin reer caynaba caynabu joogaa asalkiisuna waa reer garadag waan garta ninna waxaa la yidhaha ina maal baa la yidhahdaa waa reer arabsiyo ama waa reer gabiley waan garta ninna waxa weeye halkan buu degan yahay oo cabdisalaam turki si wanaagsan 3 nin baa nool ilaahay hadaayo cabdisalaam turki ma garatay cabdiraxmaan turki wuxuu ahaa taliya ku-xigeenkii ina koodbuur raggii ina askar dibadda kala soo galayna wuu ahaa doonaya inuu howlgalka fuliyo gaani in la dilo waa qodob sidaas buu isna ku gebagaboobay ragga dhintay ee ku dhintay halkaa waxay u badnaayeen ee dee iminka geeriyooday ee howlgalkaa ku jiray reer burco ama reer sanaag ma garatay reer hargeysa ma badnayn ina maalkaa nool hadda ma garatay howlgalkan saas ku dhacay maalintii ciidamadu dhacay halkaa waxaad ku cadaynaysaa in macnihii halgankii uu taxnaa oo isku ilaa bari ilaa iyo galbeed aad iyo aad sidaa la isugu soconayay ayaad bulshada u cadaynaysaa oo reer sanaag ay galbeed ka howlgeli jireen oo reer gabiileyna ay ka howlgeli jireen maasha allah waanu garanay laakiin bulshadood anigu mid baan maanta kasoo horjeeda waan garta ragga bahasha beenta ka sheega anigu hebel iyo hebel maanta odhan maayo ee aan fartu ay ku godan tahayo war iska daaya beenta iyo waxaa isdhaafinaysaan waa si wanaagsan cadaynta nin walowban yani wax weeye intaad ka ogeyd waxaad jeceshahay maaha
وواحد هاي dalka sida xaqiiqada loo soo wada halgamay waxa weyn raggii ku dhintay kuwa nool intu waxay mudan yihiin kuwa dhintayna in loo duceeyo Ilaahay u naxariisto la yiraahdo kuwa nool la yiraahdo Ilaahay cimrigooda ha dheereeyo waxa weyn already sida aynu ognahay waxa weyn waxa loo isku wada qadiyad iyo isku mowqif baa lahaa meel baa loo wada socday imankana meel baa loo wada socdaa laakiin waa la kala badsaday okay waa si wanaagsan waxaan kugu yiri waa la kala badsaday sida loo kala badsadayna waan kuu sheegaya dhaliilaha jirana in la sheego weeyaan anigoo hadda dul maraya 27 May markii burca la galay galbeedku uu haray hadda ma garatay al'aana wuxuu ku haray idima cadday ma garatay ilaa maanta taliyihii watay lama sheegin magaciisa habeen banin baa sheegta galbeedka Somaliland hargeysa galbeed ma waa hargeysa caasimadii maalin banin baa sheegta saddex shay ka dambeysay bro koob afar koob iyo soddonkii taliyihii watay habeen qura TV-ga ma oranayna watay uma hadalaa ma nool imsoo dhinta iyagu sheegay weli ka gudubnay waa si wanaagsan taasi waa gudmar waana guubaabo sababtii waxaanu soo gudubnay gorileyntii iyo bay ahayd taasi muqulkii baynu ka soo gudubnay Mandheera iyo Birjeexna wad gud martay kamad mid ahayn Mandheerana kamid baad ahayd 1984kii iyo dagaalkii buuraha 84kii intaan buuruhu dhicin waxa weeye Ethiopia ciidanka iyaga tababari jirtay haye tababarka ciidanka iyagu Ethiopia ay tababartaa waan gartay ma tisqaadi jiray haye mar la markuu ka soo baxo ayuu burburi jiray waan gartay ciidanka iyagu waxa loo soo bedelay in awaara lagu tababaro Soomaalidu tababarto haye anigu macallin ka ah haye معلم أفنتري بنكها معلم أفنتري وكمان توصل أيضا هيد أينكها رجع أنت هو براي ما ترك بدل ما نو إن شاء الله رجع معلم تلاها فرح في سانول ما قرتي معلمين تي مجوعان كقرنا يعني قال يا فرح في رجع كلينا يدنتي ما في اليارد كود أول الرات شوقي حليم اللي قالت شوقي أدي لا وياسين تور بات شوقي نم محمود لورنش لو reer haddii ilaaha weynidmo meelaha darar weyniyo meelaha ahaan jiray baa joogay yani waxa weeye raggaa badankiisu waa dhinteen marka 1984 waxaa soo baxay ciidankii ugu wanaagsanaa oo 400 la odhan jiray Sayid Cali isagoo taliyaha xoreynta أسلم نقلها وضنك الصوماليين ذيك اللي هي اللحنة أيوة سعسلي ويسعسلي لحلة سعسلي هي مدى ومو أركي يعني وعوية يسقب خبسي وعلي مدى حرية موياني مقالة حرية موياني هذا مقالة كلا يقو أركتان مقالة كلا أنو تاقن بها إلهي هون حريستان نظيف بوها كلين ونين هلقا كدا عضبو إلهي هون حريستان فرق كلين مان بوها عادية أضبا نقولنا أيان قدو عيال الحلية الله هون حريستان إلهي هون حريستان مركا المغلانة إلهي هون حريستان ويا الحلية هلقا سيسو مرتي دبنا إيران كاسو ميشا لا يراهدو برعدو ريبو سودكي وإيران كمركا لدوني ينو براقلو ويكور هلين عادوغي دبنا هلقا سيكو سو ويرين ويسوعي دقال كاسو labadii duhurnimo ilaa iyo 9 habeen anigu waxaan ka gurmaday meesha la yiraahdo dhooba guduud habeenkii baan tagay meeshii dabeedna ilaahay naxariisaniya saaxiibkii haragwaafi ilaahay naxariistay yaanu ka daba tagnay haragwaafi maydkii iyagoo aasanaya meeshii hado qoolbuulan leh ayaanu habeenkii daqiiqaha kaga dhignay 7 miran dabadoo qabatay dagaalkaas wuxuu ahaa dagaalkii ugu geerida badnaa dhowr iyo 30 nin baa ku dhintay oo ahaa ciidanka SNM ciidanka SNM waxa weeye de taliyina waa dhintay lixne taliyuhu de wuxuu la qiimo yahay وبرعدوري إلهي هون حريص مالنتي الشهادة ده لا يا مالنتي الشهادة مالنتي الشهادة ده تصواتا وحاتمي إن اللي تشوشين بورقلكي يا مغوركي إن اللي تشوشين أياتمي
ayaa timi marka burcaduure oo la baxday maalintii shuhaadada uu kuna geeriyooday ilaahay ha u naxariistee mujaahidkii weynaa maxamed xaashi lixle qaybtii koobaad barnaamijkeena aanu ku wareysanaynay mujaahid corneyl jaamac maxamuud aadan jaamac doolaal oo in badan sugayseen anigoo abwaan sadiiq oo faarax oo idiin qaadayay wareysigani waxaanu kusoo gabagabaynaynaa halkaasi qaybtii koobaad ee barnaamijkeena inta aynu barnaamijkan qaybtiisa labaad baynu u gudageli doonaa haddii allah awoodda la ogolaado sidaa ula socdo waxaan idin leeyahay to be continue insha allah biidni illaahi kariim